محمد صلى السلام عليكم سجوكتين ولاش نمام ماجد oo idin le idinku salaamay salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal horta intaan barnaamijkan rabo inaan ka hadla aan gudihiisa gelin waxaan rabaa inaan idinka codsado maadaama aan ahay walaashiin Soomaaliyeed inaan barnaamijkayga marka aragtiin ay tixgelisiin oo waxyaabaha aan u baahanahay ay sameeyaan sida subscribe oo kale share-ka commentiga wixii qaldan ay ugu aragtiin inaan commentida igu reebtiin oo idhahdeen waxaan inaan hanay iska dhaaftada maamajida iska dhaafta waaye wixii kale to fiican oo wanaagsan kib gooyna idhahdeen idin ka codsanaa sababtoo ay walaashin Soomaaliyeed amar walba garba idinka baahanay la'aantiin waxba ma ahan lahayn intan sharaftan iyo karaamadan iyo noloshan iyo xaatadan Ilaahay ka soo dagsiina uu soo gaaray ummad Soomaaliyeed tada Soomaali ahaan sharaftan iyo karaamadan maana ku joogin adduunka marka xigta horta waxa jira Soomaaliyeed horta waxa fiican inay iswaanino sideena waxa fiican inay iswaanino hadii ay waanada ay qaldan tahay commentiga ugu soo qoraysi waxa la hebel waxa anu waanis wax qaldanayaan ani maanta idin midhahay diinta islaamka ka baxa ani maanta idin midhahay dariskiina ku xad gudba ani maanta idin midhahay isdagaala idin midhahay wax Ilaahay oo ogolaan sameeyo waxa idinku waaniya mar walba oo jecelahay inaa walaalayaal samaha aad ka tagsiin sababtoo ay waxa bariyahan social media qabsaday waxa yiraahdaa qabyaalad waa sheeko kale adduunki wuxuu horta oo ku talaabsaday adduunki rabaa inuu aado inuu diyaarada cusub isto samaysto oo maraakiib cusub samaysto hub dagaal oo casri ah soo saarto oo awoodiisa maxaan ku dhahaa oo dawladtusin oo adduunyada ku sameey laakiin nasiib daro adinku waxa ku maqantihiin qabyaalad madaxweyne walba wadanka la keenana waa helaysan yahay mid kasto ilaahu ma waxaan ku iri waxa qabiil awligiis loo qalno cusub laazim asagana wuxuu leeyahay daliil kale marka waa laga fiican yahay horta waxyaabaha qaar inaa caado ka dhigataan waa wuxuu inay marka arkin dhibaato idin wataan waa inaa go'aan ka gaartiin oo mar aad ka hartiin fiican marka xigta walaalayaal waxa jirta nin kaligiisa laba naas dagaalama mise laba gabdhood war inta qofa comment soo qora wuxuu leeyahay heblaayo adigoo daarad Ismaaciila heblaayo adigoo hawiye hebelow war laba qof waa laba qof hawiye ma laba qof daarad ma laba qof ana waxaan jeclaan lahaa sida hadda jirto si in lagu bedelo laba nin isdagaasho laba gabar isdagaasho hawiye daarad hebelow kan waa isaaq waxaan arkay maama daraad Soomaaliland ka soo hadlayso oo waliba qof cimri qaatimo ku jiro weyn aan arkay kulay tabo deesas isku fiican tahay fiis ku raadinaysa ayda u taala laakiin inta fiis ku raadinaysid ka hor raqiib iyo actida la soo xasuustaa sababtoo ay dad waxa jiro laba malag oo aan ka marnaba aan ka caajiseen inay wax ka qoraan ajiro waxaasna waa laga qoraa laakiin malaa'igtu waxay jeceshahay ay sheeg maxaan ku dhahay Ilaahay kitabkiisa ku sheegay inay wax xasanaad ka qorto inay jeceshahay ay nacabtahay inay waxyaabaha qorto marka adigoo aadanaa oo markii lagu soo qabto daciif oo intaas la eg oo markii cudur kugu dhaco ama kansar kugu dhaco ama cudur daawo leen kugu dhaco ama sokor kugu dhacdo adigoo u badbadaay maxaan ku dhahaa oo ummadid babis maxaan ku dhahaa dhamaada am u badbadaay oo awood ba aan lahayn ilaa hadana maalmo ba Ilaahay ku xadgudubto oo wada xun ummadii ilmaha yaryar oo soo kacaayo kulli dadka hor way weynaadeen inaad wanaag farto oo waalidaad tahay wanaag hogaamiso meesha laga rabay inaa maxaan ku dhahaa aad tiraado gala waxay dhahday erigada waxa kamid ah in dad badan oo dhageystaan laga waxay dhahday daaro saddex cunug oo anaka aan dhalin ma ku jiraan ama na dhalin waa fiican tahay ummad Soomaaliyeed ma isdhashay been ma aha Soomaaliyeed idil waa halgeed laamihiisa ka baxay laakiin hawiye iska celiya la ilaaha illa Muhammad rasuulullah hawiyaha li iska celinaya waa marka madaahir cali soo li iska celiya war Ilaahay ka cabsada masanin kala li iska celiya mase waxa li iska celiya daarooda sharma boy li iska celiya daaroodna sharma boy mas'uulka ma noqon karo daahir cali soo hawiye mas'uulka ma noqon karo dad Ilaahay uu inta qaar masaajidaha inay xilligaas ku jiraan laga yaabo qaar ay qabuuro ku jiraan laga yaabo qaar ay xajka taagan yihiin laga yaabo ama cimrada ay joogaan ama ay beedka Ilaahay ay ku jiraan see intaas oo umada hal qof madaxiisa ugu caaysa nacalla hebel ku yaal nacalla saan nacalla qabiil hebel ku yaal Soomaalida marka runta ku sheego dhiiga ka daato dhulka ku dhibca waa hal laba ma aha laakiin waxa fiican maadaama umada fasahaad la rabto waxaaga inay qalbiga kugu jiraan oo Ilaahay ala hortagtay laakiin ina umad ku fasahaadis waa laga fiican wixii wasaqo adiga kugu jira iska hayso wixii adiga kugu jiro bedelka umad Ilaahay ku fasahaadi lahayd iska hayso ilmo yar oo jiil soo baxaya oo hadda social media ku cusub oo yar oo 20 jira ama 19 jira intaan dhihi lahaa hebelaata war aniga markaan keen soo galay waxa ahma aqoon marka runta ku sheego laakiin hadda qabiilo dhanba adinka jaamacada qabiilka dhan anaga hadda waa ka qalin jibin adinka noo qorteen Soomaaliyeed hebel noo waayeen saasay taa markaan qiimeeyay aniga hadda been kuma sheegay waa nacab haba qabiilkan ka dhashaan ba ifka u nacabahay
sababtoo ay qabiilka waxa inacsiyo ma taqaana markaan u tagaa yaa tahay aba leedahay yaa tahay daa saama dhibsaday baani ani xamaraan ku dhashay xamaraan kuma baaro weliga yaa tahay ma baleedin aniga markaan Nairobi imaado yaa tahay leedahay war yaa tahay maxaa la dhahay yasmaa u fahmay marka Soomaaliyeey waxa idin kala taliyaa mar walba walaalayaal waxyaabaha xun ummad ilaahay oo walaala oo darisa oo ehela oo isku dhaqana oo isku diin oo isku guursada oo isdhaqda oo is doonto 24 hours oo ila cunug iyo hooyadiisa maxaan ku dhahaa ma dhihi kartaan in sheeg in hebel iyo hebel oo isdagaala laba nin dartiis haween daaro wadada walaala wada dhashay ayaga wadankooda hadda wada jooga ayaga wax wada qaybsada ayaga madax iyo shacabkooda ya awli madax iyo shacabkooda soo ahaa jireen dadku waa isku dhacaan waa bani aadan laakiin waa loo duceeyaa ummadda waxa la ilaa ummadda bagooda baracad isku maray laakiin inaad dhahdid adoo maamo weyna inaad dhahdid ha kaalaga iska celiya daarood iska celiya wiil iska celiya dadka dhan waa isdhaleen dadka dhan markana waa isdhaleen anaga hadda naaga waxaan nahay ma dhalin Soomaali aan wadaagna dhalna alxamdulillah shurub alcaalamiin wana ku qanacsanaa wax kale oo ka wanaagsan dhalayna ma jirto la marka ma waxaan dhahaa wiilkaygu yaa aniga wiilkayga aniga ma waxaan dhahaa waa nijaas see ku dhihi karaa aniga wiilkayga wiil Soomaaliyeed waay guurkiisa markaan guursanay aabisna waxaan u bareeray inuu wiil Soomaaliyeed yahay u guursaday inaa wiilkii aniga igeeyay ha u guursaday ma u guursaday inaan qabiilku aflagaatay marka Soomaaliyeed ani waxa idin kala tali lahaa horta markasta aan waadin la taliyaa laakiin dad talideed inay dhibayso laga yaabo dad waxa jira qabiilka oo dhuux inuu ka galo oo dhacaan ka noqdo oo lafaha ka raaca jiro oo maxaa ku dhahaa waxaaba ka baqaa mar dhow inay maxaa ku dhahaa markay wadada marayaan soo tufaan qabiil ay soo tufaan ka baqaa dadka qaar aad ku arkay social media waadada la yaababo gabadhan oo sumcad laha soo fariisan dharay xiranta waa Soomaali sacbi wixii ka sin wabde hebel iyo hebel na adduunyada ilaahay inta adigu sacab qabiil u tumaysid gabdhaha adigu kula faca waxay soo saaraan electronic intay soo saaraan lagu intifaaca markaas ay beelweyntooda dhan intay cunaanay ilmahooda yararka wax ka faa'iideystaan jaamacada uga soo baxeen ma adigu ma ina qabiil u sacabtunta ilaa 91 ma adigu sharaf u moodaa taas sharaf ma ku noqonayso hada aniga dad ay markay maqlaan laga yaab inay dhahan qoftan ayada laangaab ilaahay anigu Soomaali hada laangaab ah taagan sababta dadka Soomaaliyeed waxaan kula yaabana laangaab ay ku yihiin 25 hours calaamo un bay sitaan 15 kalara 15 qabiilna waa sitaan adduunku waa iska nastaa qori tirir iyo maryamo wato ya waa dad wada nool oo maxaa ku dhahaa sharaf u nool aad iska dhiga dadkiina dhinac ka raaca dadkan walaalaha oo ehelada oo isdhalo oo diinta islaamka ku walaalana iska daaya Falastiin calankeeda xabadka ku wadateen maxaad ugu wadateen waxa ugu wadateen inay muslimiin idin leeyihiin maxaa wiil Soomaaliyeed oo walaalka oo kala intaad u soo istaag social media aad u leedahay la dilo sababta Falastiin calankeeda u qaadanayso wiilkan hal dilo walaal maxta karaabo kula dhasho dhiigaaga hal xabad isla yahay mase waxaad diinta ku walaaladeen diinta islaamka ma ahayn kan أنا واحد إلى ضد بدن أون أخانو وأنا مقعود الشيءين أنا أركو أدون كان هذا تاجنا صح هذا كوسي سعوتين ديك مركلين كقاعدة وحنا كبقى إنه لحق تمن عور ليدن كهلو لحق تمن عورنا يا قبيل وبنقطان عذر هذا عادي وما ضل جاي جاس سكرتي ديك كل على ليدن كواي وقبيل عذر لا عصب إنه ذيك صباح صوبته مركز سيو فيريو قبيل كيا وح بركنت بيت مركز يحس قبيله كوجرو تيك توك وكوساريه فيسبوك وكوساريه هبل ورعالكaaga waa qaadi kartaa gobolkaaga calankiisa waa ku faani kartaa calankaaga hooyo waa ku faani kartaa dadnimadaada waa ku faani kartaa Soomaali qabiilkaaga xataa waa ku faani kartaa wax dhibo ma laha Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku yiri waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu anna akramakum 'inda Allah laakiin maxaa loo baahan yahay inaad isticmaalin qabiilka isticmaalin qofa hebela wiil inta ku dilay wax qadar loo dil hadii lagu dhaho Ilaahay hadaa cabsanayso oo markaas aslada walaga wadbaday Ilaahay rabbi ummadaada kala qabooji inta saabaka adag هذا مركز عد حرية أقوال شيء أهستنا وروحنا واخدين هالجوجيو مو بس أنت صحيح صومالية بس وحكي لاجرو وحكي له داود تين أذن كلها وأنا بينكم الشيء جاي إلا هبين كعنا شوية إلا هذا حبض دوشي ذاك يريسي وحن أقعد إنه قبيل دورية أوليه أين جرن أنا حبض هين ما فهمت مركا دتكي كل شيء صومالية حبض كدول يريسي كوسا قري كوسا بربارة أنت كل سو كذا وكمان دعمها قوة كصباح أهرت أقعد كان قبيل إنه وحنيه أنا وحنا مرة بأسكر مركا أركو دولة يمركا أركو ضد نظام يمركا أركو والله إلي ناجي ما دوحان أو إلي ما إلها ودن كي الصومالي أو نوعا أو كلا ضبين تان كجرت أو محكمة ضهان كجيران أو شرع كان النظام كان يكلا ضمن إشرف تان كجرت معك دون تاع أو عيدا كان مدرسنا وقرح بدنو جيركو لسني وكالا أرجوهم محن كلها كل ما يسكرن تان ليش مركا أركو أسكر الصومالي ده دروف سن مركا أركو حتى أدي أنا أقوم رجودا ما في ركر في ديو مركا أركو أمد الصومالية ده بابا أصلا أو حريها حوتيجو كجرت يمالها كسر أحسن مركا أركو سيدو كلا تقول ما مركا ولا ليالو الصومالية أنا برنامج كان وعي إيوانا لها من جوجينا أنت صومالي أنت واحد قلدم أركا إنسان أمان وذايا مركا ولا ليالو إمد الصومالية توك هذا أركتان يلا جرب سنين هذا نخاين أركتان يلا جرب سنين هذا أركتان نين واحد عايو أما قبل خوف صناعي أما ملك واحد قلدك سمنا قبيلها كنت غيرين
إسكدا قبيلة واحد في عمها إن شرعي wax walba sharciga u tigso hadaa wadan joogto anaga wadanka Kenya joogno xorriyad iyo sharaf aan ku noolnahay wadan sharci ka jiro waay hadaa wadanka Soomaaliya joogto sidoo kale dawladda ka jirta dawladda u tagaysa dhibaatada ka soo sheegaysa hadii dhibaato lagu haayo waay laakiin social media soo fariisatid ina magacaaga qabiilku effect gareys waa laga fiican antaas aan ku dardaarma insha Allah barnaamijyo kala badan aan ka doona intaan ka badan kama sii wadi karo waxaan idinka tagaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dardaarkaygaasna waxaan rajeynayaa mid qiimo leh oo dad badan ay ku waana qaataan inuu noqdo walaalo ka TikTok sii waray TikTok oo iska daaya qabyaalada total iska daaya xagga iska dhiga ilaahay umadiisa kamid noqdo horumarkiina ka shaqeeya gabadhana mustaqbalka heerasa wiilkana mustaqbalka heerasa ummadda Soomaaliyeedna haloo duceeyo u baahan tahay ama oo qabiil uma baahna